السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتي أفراد أو كورسادة ugu magac daray hababka ilmo korinta. qaybtan afraad waa qaybtii ugu dambeysay koorsada gabagabada ayaan soo gaarnay. waxaan rajeynayaa inaad xoogaa soo yar fahanteen hababkan iyo siyaabaha ma arkin ay ku yimaadeen cilmi baaris la sameeyay kadib ama kuurgalid loo kuurgalay waalidiinta qaar sida loo dhaqmayaan ciyaalka iyo kaliya ma ahane waxa kale loo kuurgalay ayagana habka afarta habood hab walba markii caruurta lagula dhaqmo natiijada ka imaan doonto ama saameynta ay ku leedahay ciyaalka. casharka koowaad saa ku xasuusataan qayb walbo casharo ayaa hoos yimaada. casharka koowaad oo ah qeexitaanka aan ku qeexayo habkaas waxaan idinku sheegaa erey aad ku xasuusataan habkaasi macnihii si aad hadda kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa habka waalidiinta isticmaala awoodooda ama authoritative parenting style. authoritative parenting style marka ereyga waxaa eri ka waran mar walba markaad hadlaysid inuu ku jiro ka waran. hadda marka ereyga aan rabo inaad ku xasuusataan muxuu ahaay habkan dayacaada waxaana kaloo loo yaqaanaa uninvolved oo ah in uusan waalidka shuqulba ku yeelanin ilmaha iyo waxa uu sameynay. waxaa muxuu ahaay aad ku xasuusan kartaan maxaa iga galay waa dayacaadi mogta micnihii waxa kaama gelin camal. habkaas marka ku xasuusta waxaa jirto oo kale oo aan idinla wadaagay qayb walbo ama hab walbo marka aan soo sharxayay in ay jiraan muxuu ahaay cabir lagu cabiro 2 dimensions in lagu cabiro oo labada dimension oo lagu magacaabo warmth ama responsive ama control xakameyn ama diiranaan. xakameyntaas iyo diiranaantaas ayaa marka muxuu ahaay la dhigay dabeecadaha iyo habka ay arkeen ee u kurgaleen sidaas ayaa magac loogu bixiyay. hab walbo waa idin soo sharxay in uu muxuu ahaay dhinaca uu ka joogo miyuu ku sareeyaa ku fiicaya ma ku hooseeyaa labada cabir lagu cabirayo hababkan waalidnimada ama hababka ilmo korinta. hadda marka sida hadda shaashada ugu jeedaan laba falaar ayaan idin ku tusinayaa meesha si aad u fahantaan. diiranaanta waa hoos, xakameyntana waa hoos. warmth iyo responsiveka iyo controlka labadaba habkani hoos ayuu ku yahay. kuwa waxaa jira kor uu ku yahay mid kor ah mid hoos ah labadan waxaad ogaanaysaa inuu hoos ku yahay. micnihii taas maxay ku siinaysaa habkani waa hababka aad loogu deeriyay. aniga hababka kale ma idinkaan idin siiyey inaad judgment samaysaan iyo waan idin sharaxay in ma aragtay hab walba aadan isku judge garaynin oo aad tiraahdo maxaa meesha ka jiro laakiin sida muuqato oo aad la sugu raacayo waa yani waaqici ah habkani dee waaba dayacaad ereygiiba bay diyaar u yahay. su-aal baa jirta marka la isweydiiyo oo ah dayacaada maxaa keenay. taas marka waa mawduuc kale laakiin waxaa laga yaabaa in waalidiinta qaarkood saas ay ugu dhasheen laakiin waxaa kaloo la ogaaday iyadana oo muhiim ah in la qadariyo markii wax la baranayo mar walbaba dhinacyo badana laga fiiriyaa oo maxaad u dayacaysaa waalid u dayacaan badan waalidkii xun inaan judgment la soo boodin. sababta keentay dayacaadaas waxaa laga yaabaa qaar inaysan sabab lahayn. okay haddaad wax dayacay caruurta waa laga qaadanaya matalan laakiin waxaa kaloo la ogaaday inay jiraan factors kale oo ah in waalidiinta qaarkood maandooriyaal ay isticmaalaan. taas waa midda kale waxaa la ogaaday waalidiinta qaarkood in uu jiro mushkilad dhinaca dhimirka ah oo awoodba u siinaynin ilmahan inuu ma arkin oo yani take gareeyo. ereyada marka aan rabo inaad idin sharxo aad ku baran kartaan ama aad ku fahmi kartaan waxaa waaye ilmaha oo aan waxba lagu darsanin. waalidkiyo waxaad arkaysaa ama telefoon dhagta ku hayo ama howlo kale ku jiro oo cunugii xataa marmar cunug baa waxan baan soo sameeyey hooyo ama aab fiiri aabihii ama hooyadii marka businesskooda ayaga ama waxa ayaga danta u ah laakiin ilmaha aan tacalluq ku ahayn ayay u jeedaan. waxaa laga yaabaa xataa saaxiib inuu waalidka la hadlayo laakiin cunugaadii oo ku hortaagan markaad ma arkin oo aad
ignore garayso waxyaabaha ilmahaada ay sameynayaan oo aadan waxba ka ogeyn waxay soo hoos imaanaysaa habka ilmo korinta oo lagu magacaabo dayacaada. Cunto waa la siinayaa cunugii, jiif wuu haystaa, hoy wuu haystaa, laakiin waxaas intii sii dheer shuqul iyo shaqo kuma laha waalidka. diiranaan la-aan ayadana waa calaamadaha lagu garto hababka dayacaada. xakameyn la-aan micnihi ma in la kontaroolo, laakiin waxaa jiro balance oo la rabo consistent in lagu ahaado ruleska aad siinaysa ilmaha inaad ku ogaato. intaasoo dhan way ka maqan yihiin. casharkeena labaad ee qaybtan afaraad ee ugu dambeysa koorsada waxaan kusoo qaadan doonaa dabeecadaha waalidka. mar walbana waan idin sheegaa oo markaan qeexitaanka bilaabo dabeecadihii hore ayaan usoo geliyaa, laakiin insha allah tacaala ida xoogaa waadix ayaan baran doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.